Bismillaahi Raxmaani Raxiim daawadayaal maanta bishii waa 8 bishii afraad 2022 ciidamada Ukrainiyiinta waxay sheegeen in ay soo rideen raxan diyaaradaha ciidanka Ruushka 31 bishii iyo wiiganbaba ayagoo ku soo riday gantaalo casri ah oo kombiyuutarada oo aan dhaqaaqayn oo fadhiga laga ridayo kuwaas oo laftoodu diyaaraduhu aysan qaban karin ayaa waxay soo ridayaan diyaaradihii waa kana gantaalkii oo kombiyuutarka laga hagayo asoo telefoon lagu hadlayo arrin kale waxa la kala hagayay marka waa nooc casri ah weeye helicopterkii dhan dhulka la soo dhigay ilaa 12 helicopter baa laga soo riday dhinaca kale waxa la arkay Ruushka markuu ciidamadiisa kala baxay agaarka Kiev bariga iyo waqooyiga iyo centraalka tuulooyinka iyo degmooyinka xuduudooda waa in taangiyada Ruushka calanka ku suran waa taangiyada Ruushka iyo gawaaridoodiba in ciidamada Ukrainiyiinta ay tooganayaan halkaas marka waxa ka cad in ciidanka Ukraine qalab casri ah ay siiyeen reer galbeedku qalabkaasna uu soo Ruushka aysan marka xeelad tactica ayuu Putin halka uga baxay laakiin khubaro ku xeel dheer xagga militariga oo TV-ga Al Jazeera waraysiisay waxay dhaheen in waxa ka dhintay dhaheen ciidan gaaray 40,000 ilaa 12,000 oo ka dhaawacantay 2,500 oo gaadiid ilaa 3,000 inta u dhaxaysana waa ka burbureen bay dhaheen Ruushka inkastoo saraakiisha Kremlin-ka u hadlay warkaas ay beeniyeen daawadayaal xaaladda farkama qodna maanta Ruushka wuxuu duqeeyay bariga Ukraine dhimashada waxa la sheegay in maras ilaa 50 qof caawa duqeyn baamba maanta halka ka geystay gobolka Donbass daawadayaal arrinta farkama qodna dagaal ba'an ayaa ka socda dalka Ukraine ciidamadii caasimadda qabsan lahaa xaalad military ayuu uga baxay waxa laga yaabaa inuu haddana dib isku abaabulayo ama gobolada uu ku ekaan doono dekedaha iskale sida Khorazan iyo Mariupol iyo gobolada kale u dhow sida Donbass region iyo gobolada kale oo dhan oo ay mucaaradku ku xooggan yihiin iyo Crimea maaragtay xuduud la leh asoo intaas rabo inuu qaato sababtoo dhulkaas waa dhul khayraadkiisa aad u fara badan yahay oo dekada leh oo warshadaha ugu waaweyn Ukraine ku yaaleen halka warshadaha biraha sameeyo kale sida magaalada Mariupol kale daawadayaal Ruushku wuxuu soo bandhigay hadda tactica cusub ayuu soo bandhigay hubka hore uu ku dagaalamay hub wuxuu ahaa maaragtay duuga ciidankii oo meesha tagayna ciidan iska waxay ahaayeen daalan oo iska old school iska ahaayeen midowga Soviet-ka haray laakiin hadda waxa la leeyahay khubaro xagga militariga oo hadasha inuu keeni doono hub casri ah inuu adeegsan doono ayaa aad looga baqayaa waliba hadda maciishada hadda shidaalku waa qaaliyoobay sarreenka waa qaaliyoobay adduunka wax walba waa qaaliyoobay naaskorti waa la leeyahay caalamku waa isku xiran yahay waa global reer galbeedku Mareykanka uu siyaasadda ku lahaa midowga Yurub hadda ay fahmeen markii gaaska ku qaaliyoobay iyo maciishada ku qaaliyoobay sababtoo Mareykanka asaga wuxuu soo saartaa sarreenka ugu badan ilaa China geeya chickenka sarreenka waxyaalo badan buu China u dhoofiyaa waddankiisa waa qani beero badan buu leeyahay ilaa Brazil bay wax kala qaataan marka reer Yurub suuqa kaliya haysteen waxa ahaa Ukraine iyo Ruushka labadiina wax ma siiyaan hadda Ukraine ayaa gubanaysa Ruushkuna gaaska wuxuu yiri waa in lacagteeda lagu gataa lacagtii Ruushka oo waxa soo sameeyay hadda baalkii ii sheeg recovery way soo noolaatay lacagtii rubiya oo Ruushka marka midowga Yurub hadda waxay leeyihiin banaanbax badan ilaa shalay ka socday ilaa xalay Jarmalka waxay leeyihiin waa in Ruushka aan la cambaarin oo Ruushka maaragtay aan calaaqaadka loo jirin oo noqoteen la saarin la leeshiilay shacabkii Jarmalka waa kaceen daawadayaal xaaladdu waxay tahay hadda shacabkii reer waxay dareemeen cunaqabateynta ayaga saameynayso inaan Mareykanka waxba u haynin Mareykanku uu doonayo in Ruushka iyo midowga Yurub isku dhufto si halkaas awoodda midowga Yurub ay u baabaado oo Mareykankiisa halkaas uga taliyo China-hana uu si soconaya China-sku ilaa hadda maaragtay hataa Ruushka la jira ma dhihin ayagoo calaaqaad fiican ka dhaxeeya xagga militariga marka daawadayaal wararka ugu dambeeyay deeqada baan la socodsiin doonaa hadii alla eebeedmo xaaladdu meel xun maraysa shirka shaaniga oo Ruushku hadlan wuxuu yiri 10 ayaan dhigin doonaa buu yiri dabadhilifka Ukraine haysta oo yuudka iyo reerku daba socdaba wuxuu yiri 10